aniga oo shakhsi ah oo aan meeyarka ahayn oo aan guddoomiye gobolka ahayn oo muwaadin Soomaaliyeed oo magaaladan ka soo jeeda ah jawaab aan leeyahay markaas sidaan uga jawaabaya anigoo guddoomiye gobolka ah oo duqa caasimadda ahna si kale ayaan uga jawaabaya waxaan ku hormarayaa muwaadin caadi anoo ah muwaadin caadi anoo ah oo dadkii magaaladan ka soo jeeda ah saddexdaas option ee isdhinactan waxaan qaadan lahaa optionka dhahaya capital city state ama dowlad goboleed caasimad ah ayaan qaadan lahaa su-aasha jawaabta kale laga rabo guddoomiyihii gobolka banaadir duqi magaalada caasimadda laga rabo waxa waaye waa waxa aad ii dhiibtiin waaye adinkaa laga rabaa inaad shirtaan dhalaalisaan maskaxdiina tale aad soo gaartaan aad tiraahdaan annaga taladeena waa tane goobaha lagu gorfeeyo talooyinka dalka siyaasadda dalka loo geey marka middaas adinkaan idinka sugayaa laakiin jawaabtii shakhsigayga ahayd waa idin sheego bilaa tashwiishino gudoomiye inkastoo khudbadaada dheereed aad waxyaabo badan kaga hadashay haddana waxaan jeclahay hal su-aaloo kooban inaan ku weydiiyo adigoo jawaabta raacsanaya talooyinkaaga iyo fikirkaaga u dambeeya si aad noogu soo gunaanado barnaamijkeena maanta waa maxay muhiimadda ay u leedahay gobolka banaadir maamul daadejinta dhanka siyaasadda oo laga soo daadejiyo heer federaal loona daadejiyo ilaa iyo heer degmo muhiimaddaas waa muhiimad weyn oo ballaaran la-aanteedna aynan dhutiska kala bixi karinba dhutinta hadda aan dhutinayno kamaba bixi karno haddaynan helin maamul daadejin kasoo daadegta federal level oo usoo daadegta regional kadibna usii daadegta district level iyo kasii hoos waxaan sidaas u leeyahay yacni bulshadan waxaad waa ku filan yihiin haddana waxay ku filan yihiin intay bulshada ku filan yihiin ku nool halkan ayay haddana dalka beelaan dowladiisa inay beelaan waa fiican tahay laakiin wax ayaga u qorshaysan inay wax ku hagaagsadaan oo loo qorsheeyo federal government u qorshaysay ama yani loo qoondeeyey ma jiraan marka haddii la yidhaahdo marka maamulkii waa la daadejiyey ee degmo ekis incomekeeda ay isku celceshato waxaan hubaa degmadaas haday maamul fiicno iyadu ay doorato ay yeesho oo mid lagu qasbay oo uu wixiisa iska dhuranayo uusan madax u noqon baahida degmadaas inay daboolmayso waa sidaa darteed daadejinta adeegyada bulshada iyo maamulka ilaa hoos loo soo daadejiyo muhiimad aada u weyn ayaynu leeyihin waana midda aan ku xeeqno oo aan dadaalkeeda ku jirno laakiin waxaad ogaatiin ilaa hadda wax qoraala oo la soo kariyey oo inta degmooyinkii shireen oo bulshooyinkii gobolkan banaadir soo kariyeen
ay ii dhiibeen ee ay yidhaahdeen noogey goobaha yani federaalka ma jiraan. marka qaarkood waxaad moodaa wasiir saalax iyo mas-uuliyiinta lamid ah inaad ku celcelinaysaan su-aal jawaabteeda adinkeedu ku maqanta. marka dib isku noqda, wax badan keliya, wax aan la tagno goobaha. anugu wixii isaga soo kay dhaca umbaan iska sheegaa moogta oo isaga indhacdaygaa. marka waxaad aan idhaahdo bulshadii ayaa sidaan rabta oo mataqaanaa yacni aada u aragtiin dantiin inay tahay oo qoraala ii dhiiba aan ku doodo. dowladdu marka state kastay ka tirsan tahay, gobol kastay ka tirsan tahay, representativeska ama wakiilada gobolladaasi ee dowladdu ka tirsan tahay, doodiina wixii ayaga aan u roonayn ayagaa ka doodaa marka waa diidaya. marka rabitaankiina oo yacni aada adinku isku roonaateen haddaad la timaadaan, jawaabta ka imaan doonta kor ama dowladda dhexe rabitaankiina 100% ma noqon doonto. laakiin wax laysku ogyahay baa na anfacay annaga. wax un laysku ogyahay oo la yidhaha sidaasaa laysku raacay, haddii aan mataqaana annaga iyo reer banaadir iyo federal government ay isla gaaraan, annaga horumareeba noo taha waxaan anfacayn. keliya waxaa ka jira in wax walba oo federal level laysaga maamusho oo wax nala weydiiyahauna aysan jirin, annaguna aanaan dacwo qabin oo doodaan qabnaba aysan jirin. wax hadda noogu daran waa taas.